kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka koonfur hindiya barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaa sheekooyin koonfur hindiya ka jira arrimaha ganacsiga aflaanta sidoo kale mashaariicda kala duwan iyo waxaan soo qaadanaa nolosha jilayaasha marka koowaad waxaan ku bilaabanaa ciwaanada koonfur hindiya toddobaadkan oo haysta xidig weyn lagu magacaabo Ranada Gubati oo si rasmi dabcan ula aqalgalay saaxiibtiis gabadha lagu magacaabo Mahika Bajaj waxaa hore idin kula wadaagna dabcan Rana iyo Mahika inay isku galiyeen Faraanti soo kalena alkuntay haatan waxay si rasmi shaaca kaga qaad arooskooda inuu dhacay sidoo kale tan waxay noqotay arrin si weyn looga soo dhaweeyay koonfur hindiya maadaama lagu guda jiro bandowga hindiya uma suura gelin qaar ka mid ah jilayaasha koonfur hindiya ugu caansan inay kasoo qayb galaan arooska Ranada Gubati sidaa darteed jilayaasha intooda badan baraha bulshada ayaa hambalyo ugu diray markii laga reebo Samantha Akini iyo saygeeda Naga Jatanya oo u suura gashay Ranada Gubati arooskaas inay ka qayb galaan maadaama ay daris leeyihiin haddaba atoorahan awoodda badan ee ku caanbaxay filimkii Bahubali Ranada Gubati wuxuu baraha bulshada ku qoray ugu dambeyntii waxaan la aqalgalay midii aan doortay Mahika Bajaj wayna aqbashay ayuu ka dhawaajiyay guurkayga kadibna hambalyo kala duwan ayaa loo soo diray xidiga daawadayaasha qiimaha badan Mahika Bajaj waa gabar fanka aan shaqo ku lahayn waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay magaalada Hyderabad waxayna wax ku baratay magaalooyinka Mumbai iyo London waana gabar ku takhasusay dhanka naqshadeynta guryaha saadata Ranada Gubati wuxuu doortay inuu la aqalgalo gabar aan fanka shaqo ku lahayn gabadhan lagu magacaabo dabcan Mahika Bajaj waxay iska leedahay shirkad dabcan guryaha naqshadeystaasi oo lagu magacaabo Dewdrop Design Studio waxayna qaabilsantahay diyaarinta xafladaha kala duwan iyo barnaamijyada waaweyn inay naqshadeyntooda diyaarisaa darteed waxay haysataa shaqo u gaaray haatan nolosha Ranada Gubati ayay ku soo biirtay waxayna barta Instagram ku soo qortay waa bilow aan rajeynayo inuu weligiis waara dabcan waxay ula jeedaa nolosha aan la bilaabo Ranada Gubati inay noqoto mid aan isku cimri dhameysan sidoo kale Mahika Bajaj waxay u mahadcelisay qof kasta oo hambalyo u soo diray guurka ku aadan ay Ranada Gubati daawadayaasha qiimaha badan Ranada Gubati ciwaanada uu sameeyay intaas kuma eg kadib markii si rasmi Rana oo shaaca kaga qaad inuu la aqalgalay Mahika Bajaj Trisha lagu magacaabo dabcan Trisha ayaa dabcan baraha bulshada isku celin waas waxayna soo bandhigtay jaceylka uu qabtay Ranada Gubati waxaa la wada ogyahay ama dabcan laga warqabay Ranada Gubati Trisha lagu magacaabo Trisha inuu ka dhaxeyn jiray xiriir laakiin xiriirkaas ma uusan noqon mid miro dhal ah saadabteed in muddo ayaa ka soo wareed xiriirkaas waan la iska hilmaamay laakiin Trisha dabcan way ka quusan waasay kadib markii ogaatay Ranada Gubati si rasmi inuu la aqalgalay gabadha lagu magacaabo Mahika Bajaj saadabteed Trisha waxay baraha bulshada ku soo qortay qoraal aad iyo aad dadka u soo jiitay laakiin markii dambe way tirtirtay dabcan wayna isku xishootay marka koowaad waxay tiraahday qoraalkii soo dhigtay dadka mar walba jecel inay jecelkooda hore saaxiib ka dhigtaan ama iska warhayaan waa kuwa aad iyo aad qalbi jab ula kulmaan sidoo kale naxdin dadka ku reebaan dabcan hadalka Trisha waxaa loo fahmay in ula jeedaa daawadayaasha qiimaha badan in Ranada Gubati ayada mar hore ay kala hareen laakiin ay saaxiibo caadi balse ay aad iyo aad u dhibsatay qalbigan uu xanuunjiyay akhbaarta ku aadan markii uu la wadaagay baraha bulshada uu soo dhigay inuu la aqalgalay gabadha lagu magacaabo Mahika Bajaj Trishadana awoodda badan inta badan ka soo muuqata filimada Tamilka lagu magacaabo Trisha marar kala duwan ayaa banaanka soo dhigtay jaceylkii Rana kala dhaxeyn jiray waxaana ugu dambeysay dabcan markii ay ka qayb gashay barnaamij Coffee with Karan ayada iyo dabcan Ranada Gubati goobtaasna uu ku wareystay Karan Johar waxayna barnaamijkan ka qayb qaateen sanadii 2018 waxayna si rasmi shaaca kaga qaadeen ku dhawaad muddo 10 sano xiriir jaceyl inuu ka dhaxay laakiin ugu dambeyntii xiriirkaas iska dhamaaday ama si dabiici u soo ilaasaa darteed Trisha waxay qoori la'dahay ama ay ka samri la'dahay Ranada Gubati oo 10 sano xiriir jaceyl kala dhaxay ugu dambeyntii nolosheed inuu ka baxay oo nolol rasmi u sameystay haatan uu la aqalgalay Mahika Bajaj gabadhaana baraha bulshada ka tirtirtay qoraalkii ay soo dhigtay ay ku dhahday dabcan dadka saaxiibka ka dhigtay ama jaceylkaaga hor markaa saaxiib ka dhigtay uu kula wada akhbaar ku aadan guur inuu yeeshay waa mid qalbi ka jabinaysa marka Trisha waxa loo qaatay warkaas inay ku dureyso Ranada Gubati sidoo kale tan qalbiga xanuun ay ka dareemayso marba hadii jaceylkeedii hore uu haatan si rasmi Mahika Bajaj ula aqalgalay waana akhbaar weyn oo koonfur hindi si weyn looga hadalhayo daawadayaasha qiimaha badan bal markaana soo qaadana sheekooyin kale xiisaha leh filimka lagu magacaabo Roller dhawaan ayaa laga dhigay af Soomaali kadaha kala duwan ee filimada turjuwaana filimkan si rasmi ah dabcan af Soomaali kaga soo dhigay mashruucan wuxuu soo baxay dhamaadkii sanadka hore ama 20 December 2019 filimkan waxa hogaamiye ka ahay superstar-ka weyn Damura Balakrishna oo dabcan adeer u ah Junior NTR waxaana kula jirta atirashadii filimkii Taranam Bomika Jawla walaashis ku jileysay hadaba filimkan weyn nasiib dar wuxuu noqday mashruuc burburay oo qasaare lixaad laga kulmay filimka Roller si u diiwaan gashan dhulweynaha Telugu wuxuu ka keenay 10.6 karoor saami ahaana waxaa laga 6.7 karoor gobol Karnataka wuxuu ka keenay dabcan 9 lag saami ahaana waxaa laga 45 lag dunida inteeda kalena wuxuu ka keenay 1 karoor saami ahaana waxaa laga 35 lag wadarta guud filimka Roller wuxuu soo xareeyay dibad iyo dal markii la isku daro 12.50 karoor saamiga guud ee laga helay ama qolyaha cajaladaha qaybiyaan ka helan waa 7.50 karoor waxaa laga kulmay qasaare lixaad la sababtoo ah 3 meelood markii loo dhigay lacagtiisa hal meel kaliya filimkan soo celiyay wuxuu noqday waxa la triple disaster ama 3 jeer ayuu burburay sababtoo ah filimkan qolyaha cajaladaha qaybiyaan waxay ku iibsadeen 24 karoor kaliya waxay ka heleen 7 karoor iyo bar waxay ka dhigan tahay markana Damura Balakrishna culayska inuu ku sii badanay maadaama filimadiisa ugu dambeysay qasaare xoog laga kulmay filimka Rollerna kuma sii jiray maadaama qasaare lixaad laga kulmay waxaan u rajeynaa superstar-ka weyn dib inuu soo kabto markii xaaladda caadi ku soo laabatay kadibna mashaariic saameyn uu sameeyo aan sii wadna sheekooyin kale daawadayaasha qiimaha badan koonfur hindiya ka jira xiisaha leh superstar Mohanlal oo toddobaadkan u dabaaldegay sano guuriis 6aad wuxuu si rasmi shaaca kaga qaaday filimkiisii classic ahay Drishyam in qayb labaad laga sameeyay qof walba wuxuu ku xasuusan doonaa filimka Drishyam Mohanlal inuu ku qaatay bilada National Film Awards
sidoo kale tan mashruucan waxaa la sameeyay asigoo dabcan Tamil ah waxaa jila superstar Kamal Xasan kadibna waxaa la sameeyay asigoo Bollywood ah superstar Ajay Devgan ayaa sameeyay sanadii 2015 Ajay Devgan si weyn ayaa lagu amaanay bandhigii uu ka sameeyay filimka Drishyam oo waliba xitaa noqday mashruuc guuleysto toddobaadyo badan tiyaatarada saarnay Devgan bilada kala duwan ku qaatay haatan Mohanlal tiimkiisa waxay shaaca ka qaadeen Drishyam 2 in la sameeyn doono maadaama mashruucan classic uu noqday Mohanlal wuxuu leeyahay 17 sano kadib waxaan qayb labaad ka sameeynaa filimka nolosheeda fanka wax weyn ka bedelay ee Drishyam fadlan ku soo dhawaada nolosha Drishyam saadarteed mashruucan waa hubanti markii xaaladda caadi ku soo laabatay in duubis lagu bilaabi doono waxaana director ka noqon doona ninkii hore u sameeyay qaybta koowaad ee lagu magacaabo Jito Joseph saadarteed qorshaha wuxuu yahay Drishyam 2 in la daawado horraanta sanadka dambe markii xaaladda caadi ku soo laabatay ayana dhawaan duubis lagu bilaabi doona daawadayaasha qiimaha badan actorka laga dambeeyo lagu magacaabo Abdul Qur Salman ee dabcan aabo u yahay superstarka weyn Mamuti wiilka lagu magacaabo Abdul Qur Salman wuxuuna ka tirsan yahay fanka Malayalam ee loo yaqaan Mollywood xaruntooda ee Tekarela haddaba wuxuu soo bandhigay aragtida koowaad filimkiisa lagu magacaabo Kurub kaasi oo dabcan haddii nolosha caadi ahaan bandow aan la gelin la daawan lahaa toddobaadkii Ciidul Fidriga waxay ka dhigan tahay marka filimkan xiisaha badan Abdul Qur Salman inuu ka baaqdo wuxuu leeyahay ama uu dhahay haddii xaaladda caadi ahaan la filimkayga Kurub ayaa daawan lahayd toddobaadkan Ciidul Fidriga balse nasiib dar wuxuu leeyimadaas ma aysan suuro gelin soo kale Abdul Qur Salman wuxuu gabi ahaan beeniyay mashruucan in lagu soo fasaxi doono digitalka ama si online loo daawan doono wuxuu yiraahday kani waa film weyn oo markii xaaladda caadi ku soo laabatay tiyaatar la saar doono rajada ugu wanaagsan la qaban waxay tahay bilaha July ama August in la daawado filimka Kurub filimkaana dabcan wuxuu ka hadlaa nolol dhab ama wuxuu ku saabsan sheeko waaqici ah waxaan looga hadlayaa dabcan ninkii lagu magacaabo jiray gangsterkii weyn la oran jiray Sukumara Kurub kaasi oo lagu tilmaamo dambiilihii ugu weynaa ee Hindi soo maray kadib markii uu sameeyay falal kala duwan oo waliba lagu xasan doono xitaa inuu dilay film sameeyay la oran jiray Jacob si uu dabcan lacagihiisa caymiska u qaato hantiyo kala duwan u dhaxlay saadarteed Abdul Qur Salman filimkan wuxuu ku matali doonaa gangsterkii weynaa ee lagu magacaabo Sukumar Kurub noloshiisa waana film xiiso badan oo tiyaatarka laga daawan doono gabi ahaanna waa la diiday in lagu soo fasaxo digitalka aan sii wadna daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xiisaha leh koonfur Hindi stylish star Allu Arjun ciwaanada qayb ayuu ka yahay wuxuu la sheekaystay shabakada caanka ee Bollywood Hongama wuxuuna banaanka soo dhigay superstarkan sida uu kaga warqabo aflaanta Bollywoodka waxaan ognahay maqaam sare inuu ka gaaray Allu Arjun fanka koonfur Hindi gaar ahaan Telugu ka tirsan yahay waliba filimkiisii ugu dambeeyay Allah Vekum Thabarmalu ee horraantii sanadkan la daawado wuxuu noqday all time blockbuster haddaba ninka lagu magacaabo Allu Arjun wuxuu banaanka soo dhigay 3 film oo Bollywood ah inuu aad iyo aad u jecel yahay daawashadana marnaba uusan ka xiisa dhigin superstarkan xiisaha badan wuxuu yiraahdaa waxaan aad iyo aad u jeclahay filimka Jojota Wohi Secondary Amir Khan sameeyay dabcan Soomaalida filimkan waxa uu yaqaan Amir Khan baaskiilka wuxuu yiraahdaa Allu Arjun filimkan waxaa daawaday in ka badan 20 jeer waana filimkan ugu jecelahay ebad ee Bollywood ka sameeyaan sidoo kale Allu Arjun wuxuu yiraahdaa waxaan aad iyo aad u jeclahay daawashada filimka Dulwana Dulhan la Jayenge SRK sameeyay kan waa jecel classic oo mucjisadiisa wato wuxuuna yiraahdaa filimkan marnaba indhaha lagama dhaafi karo ugu dambeyntii wuxuu yiraahdaa Allu Arjun sidoo kale shakhsiyan waxaan ka helaa daawashada filimka Gully Boy waana dabcan filimkii sanadka hore Ranveer Singh iyo Alia Bhatt biladaha kala duwan ay ku qaateen wuxuu yiraahdaa kan waa filim ugu weyn waxaana si gaar u jeclahay tirinta heesaha raabka ah saadarteed wuxuu yiraahdaa filimka Gully Boy ama Gully Boy waa mashruuc aad iyo aad ugu weyn daawashadiisana kama xiisa dhiga waxay ka dhigan tahay marka daawadayaasha qiimaha badan Allu Arjun inuu si weyn u jecel yahay saddexda filim ee Bollywoodka Jojota Wohi Secondary Amir Khan sameeyay Dulwala Dulhan la Jayenge SRK ku caan baxay iyo Gully Boy Ranveer Singh biladaha ku qaatay sidoo kale Allu Arjun waxaa la weydiiyay haddii uu la shaqeynay gabadha lagu magacaabo Soya Akhtar waana gabadha sameysay filimkii Gully Boy wuxuu yiraahdaa Soya Akhtar waxay ka mid tahay xirfadlayaasha ugu tayo sareen Bollywoodka heestaan dabcan filmo badan hore u sameeyay daawaday waxay aan la sharaf weyn haddii aan la shaqeeyo ugu dambeyntii xidigan wuxuu sheegay filimkiisa xiga lagu magacaabo Pushpa ee director Sukumar sameeyay in dabcan filimka uu noqon doono mashruuc ugu horeeyay ee asagoo hogaamiye uu ka yahay kaasi oo waqooyiga Hindi laga daawan doono luqadda af Hindi lagu daawan doono wuxuuna kalsooni ku qabaa Allu Arjun dadka reer waqooyi Hindi ku nool soo dhaweyn doonaan sidoo kale tan wuxuu kalsooni ku qabaa inuu noqon doono superstar weyn oo Hindi dhan ka dhaxeeyo maadaama haatan lagu barto oo kaliya fanka koonfur Hindiya nasiib waxaan leenahay superstarkan waqtiga dahabiga bartan kaga jira daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale sheekooyinka xiisaha leh waxaa kamid ah tirisho lagu magacaabo Malavika Mohanna waxay door adag ku leedahay filimka weyn ee Master ee dabcan superstar Vijay hogaamiye ka yahay xidigtan waxay sheegtay filimka Master inuu diyaarsan yahay door adagna ay ku leedahay waxay sidoo kale shaaca ka qaaday Master inuu yahay filim ay ku xifaaltami doon laba Vijay sababtoo superstar Vijay filimkan hogaamiye ayuu ka yahay Vijay Sutubatooni wuxuu ka yahay Ladar Malavika Mohanna waxay tiraahday waxaan hubaa Master inuu noqon doono filim si weyn looga heli doono markii la daawado sidoo kale laba Vijay sida u dagaalami doonaan inaba caadi ma ay ka dhawaajisay sidoo kale xidigtan waxay sheegtay waa arrimo ballaaran ee ka shaqeynta superstar Vijay waxayna ka dhawaajisay filimka Master Theater in la saar doono markii xaaladda caadi ku soo laabato dhinaca kale Malavika Mohanna waxay ka dhawaajisay inay jeceshahay actoorayaasha Bollywoodka qaarkood ay kamid yihiin Ranbir Kapoor iyo SRK waxay tiraahday haddii aan mar un shaashada kala soo muuqalaan Ranbir Kapoor waxay ii noqon lahayd wax weyn oo aan weligay ku riyoon jiray sababta wuxuu kamid yahay dhalinyarada Bollywoodka midkaan ugu jeclahay sidoo kale waxay tiraahday SRK waa superstarka ugu weyn fanka Hindiya waxay ii ahaan lahayd sharaf haddii aan mar un ka soo muuqan lahaa filim uu Shah Rukh Khan hogaamiye ka yahay waliba Malavika Mohanna waxay tiraahday muhiim iimaha SRK jecelna la wadaagay waxa muhiim ah filim SRK hogaamiye uu ka yahay inaan kaalin ku yeesho daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii sheekooyin koonfur Hindi ka jira waxa ciwaanada qaybka
caanka superstarka weyn Ram Charan wuxuu sheegay in uu dhibsada ama uu ku caajiso guriga uu joogo waxaan wada ognahay jilayaasha koonfur hindi iyo kuwa Bollywoodka guryaha inay ku jiraan tan iyo bartamihii bisha Maarsna bandow ay hindi ka jirta dadka Ram Charan wuxuu leeyahay si weyn ay uga caajiso guriga aan joogo waxaan u baahnaan la shaqo inaan qabto aan film jelista bilaabo mega power star Ram Charan wuxuu yiraahday waxaan rajeynayaa xaaladda caadi inay ku soo laabto sababta waxaan dareemayaa caajis ballaaran noloshayda ma aysan dhicin muddo dheer intaan guriga ku jiro laakiin waan ku qasbanaa dulqaad inaan sameeyo wuxuu leeyahay xidigan waxaan rabaa taageerayaasha inaan madadaaliyo superstarkan sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay filimkiisa weyn Triple R oo ay dabcan isla jilayaan Jawhar NTR Ajay Devgani Alia Bhatt sidoo kale Rajamouli uu director ka yahay inuu kalsooni ballaaran ku qabo in la daawan doono waqtigii lagu talagalay 8 Janaayo 2021 laakiin wuxuu leeyahay waa qasab in duubista filimkan la anba qaaday bisha July haddii July la anba qaadi waa duubista filimkan wuxuu leeyahay 30% ka harsan tahay suurtagal ma noqon doonto ayuu ka dhawaajiyay Janaayo 2021 in la daawado daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka koonfur hindiya intaas aan ku soo ilinana fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu